Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ka hadlay tallaabada ay dawladdiisu ka wado ismaamulka Tigray ee waqooyiga waddanka Ethiopia. Abiy ayaa qoraal u dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in howlgalka ka socda waqooyiga Ethiopia ay wadaan ciidankiisu uu leeyahay ujeedooyin cadcad oo xadidan. Ujeedooyinka ayuuna ku sheegay in la soo celinayo ku dhaqanka sharciga iyo nidaamka dastuuriga iyo in dadka Ethiopiaanka la ilaaliyo xuquuqda ay u leeyihiin ku noolaanshaha nabad meel kasta ay dalka ka joogaan. Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu sheegay oo kale tilmaamay in dawladdiisu si dulqaad leh ay dhowr bilood isugu dayeysay in si nabad lagu xalliyo farqiga kala dhaxeeya iyaga iyo maamulka Tigray ee TPLF magaciisa loo soo gaabiyo. Dadaaladan ayuuna ku tilmaamay inay fashilmeen waxaana taa loo aanaynayaa baa la yidhi waa siduu sheegay dhaqanka diidmada iyo gabadfalka ku salaysan ee maamulka TPLF. TPLF waxay hore dawladda dhexe ugu eedeysay inay wado qorshayaal ay ku soo weerarayso gobolka. Xisbiga TPLF waxay dawladda dalka Ethiopia gacanta ugu jirtay ku dhawaad 30 sanadood markaas oo kadib markii uu xilku ka qabtay sanadkii 2018 laga wareegay guud ahaan waddanka. waxayna Dr. Abiy Ahmed hore ugu eedeeyeen inuu isku dayo sidoo ku samaysan lahaa dawlad sal adag. bilowgii bishii October dawladda federaalka Ethiopia ayaa go'aansatay in xiriirka u jarto gobolka Tigray halka aqalka sareena uu codeeyayba in miisaaniyadda laga jaro gobolka Tigray ayaa tan iyo markii xukunka laga tuuray hogaamiye Mengistu Haile Mariam sanadkii 1991 ilaa iyo 2018 waxay ahaayeen saaxiibka ugu weyn ee isbahaysiga xukunka xilligaasi hayay. sidoo kalena waxay maamulayeen gobolka Tigray la fahantiisa. kooxda TPLF ayaa door muhiim ah ku lahaa jagka tuuristii madaxweyne Mengistu waxayna doonayeen oo kaliya inay maamulaan siyaasadda waddanka iyo sidoo kale dhaqaalaha waddanka. isafgarawaaga haatan hadaba ka dhex jira TPLF iyo Mr. Abiy Ahmed waxay ka dhigan tahay jab xoog leh oo salka ku haya awoodda waddanka Ethiopia. inta badan hogaamiyaasha gobolka Tigray oo kamid yahay Mr. Debretsion Gebremichael waxay ka soo shaqeeyeen dawladda dhexe muddo dheer. Mr. Gebremichael oo ahaa halgamaa ayaa mar soo noqday ra'iisul wasaare ku-xigeenka. saaxiibadiisii la taliyaashiisii ayaa sidoo kale xilal muhiim ah ka soo qabtay dalka ilaa Mr. Abiy uu xukunka ka qabtay. ciidanka federaalka Ethiopia ee dalkaas oo dhan ayaa la ururinaya iyadoo socdo dagaalka ay xukuumadda Abiy kula jirto xoogaga gobolka Tigray. Taliya-ku-xigeenka ciidamada Ethiopia General Burhanu Jula ayaa khiyaano qaran ku eedeeyay xoogaga daacadda waa xisbiga talada gobolkaasi Tigray haya ee Tigray People's Liberation Front loona soo gaabiyo TPLF. hogaamiyaasha Tigray Debretsion Gebremichael ayaa sheegay in ciidankiisu ay dagaal ka wadaan Saudinta gobolkaasi la leeyahay kan ay dariiska yihiin ee Amxaarada. xogayaha guud qaramada midoobay ayaa isna ku baaqay in la joojiyo xabadda. xisbiga TPLF ayaa sanado badan awood xoogan ku lahaa hogaanka Ethiopia balse awooddaas ayaa meesha ka baxday tani markii xukunka la wareegay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed sanadkii 2018.